السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا حلقة تي في. مانتا وحن إذي هيا شيكا آد حكمة بدن. مانا هان دونتا تي أبو ريسي أو نعود بيسي. حين قد دونتا شيكوين تحنا إن شاء الله. markasta oo fursad helno aan soo gudbino si walaalaha ku xiran channelka ay uga faa'iideystaan xigmad badan ay uga helaan. Maanta waxa idin haya sheekadan kula soo dhawaada. Marka hore waxa idin codsanayaa in aad Huluuqa TV subscribe hadaan like na saartaan. Kusoo dhawaada sheekada. Maalin ayaa laba nin oo saaxiibo ah waxa ay dhex socdeen saxaraha kadibna way ay doodeen ama way murmeen. Mid ka mid ah ayaana wajiga laga dharbaaxay. Midkii la dharbaaxay aad ayuu u murugooday oo xanaaqay, laakiin isaga oo aan waxba dhihin ayaa uu ciida ku qoray ama carrada ayuu ku qoray maanta waxaa wajiga iga dharbaaxay saaxiibkay. Kadibna socodkoodii ayay iska sii wateen ilaa ay ka soo gaareen meel ay biyo ku jiraan, waxayna go'aansadeen in ay ku qabaystaan. Kadib midkii la dharbaaxay ayay daawo ku dhigtay isagoo ka soo bixi kari waayay biyihii, waana uu muquurtay uu quustay. Kadib waxaa badbaadiyay saaxiibkii markii uu ka soo bixi waayay biyihii. Markuu badbaadiyay kadib oo biyuu ka soo baxay ayuu dhagax ku qoray maanta waxaa noloshayda badbaadiyay saaxiibkii. Intaas kadib kii markii hore wax dharbaaxay haddana badbaadiyay saaxiibkii ayaa weydiiyay markii aan ku dharbaaxay ciida ayaad ku qortay markiise aan ku badbaadiyay dhagax ayaad ku qortay maxay tahay sababtu? Saaxiibkii ayaa ku jawaabay marka uu qof waxna yeelo ama uu dharbaaxo ama wax uu dhufto waxa aan ku qornaa ciida halkaasi oo ay dabayshu tiri karto, laakiinse marka uu qof noo sameeyo wanaag waxa aan ku qornaa dhagax. Sidaas awgeed dabaysha ma tiri karto. Marka dulucda sheekada ama xigmada ku jirta sheekada waxa waaye waad ilaawi kartaa dadka dhibaatooyinka ku geystay, laakiinse marna waxa iloobin dadka wanaagga ku sameeyay. Isku day mar inaad u abaalguddo dadka wanaagga ku sameeyo, dadka wax ku yeelo xumaan ku geystana isku day inaad cafin karto oo qof tanaasulo oo cafis badan noqo. waad mahadsantihiin. kusoo dhawaada Huluuqa TV.